halkani waa BBC waxaan idinkala hadlaynaa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo internetka bbcsomali.com. kulan wanaagsan dhammaantiinba afrikada bari saacadu waa 2 duurnimo oo gow ah barnaamijka qodobadan idinkugu hayana waxaa ka mid ah khatarta fayraska corona ee caalamka. waddanka Brazil ayaa ugu daran baa hadda la leeyahay oo maalin keliya dhowr boqol oo qof ay dhimatay. caasimadda muqdisho weli laguma baraarugsano aafadan cudurka corona oo dadku weli way isdhexyaacayaan. hargeysa iyana waxba ma dhaanto muqdisho oo taxadar la'aan ayaa la isdhex socdaa. golaha ammaankana amuuraha Soomaaliya ayuu ka xajooday. waxa ay ka hadleen in ciidamada Soomaaliya ay horumar ka sameeyeen inay la wareegaan goobo ay al-shabaab haysan jireen sida shabeellaha hoose ee deegaano ka mid ah sida Janaale ee shabeellaha dhexe taasoo suuragelisay amniga muqdisho inuu soo hagaago. idaacadan waxaa wadajir u soo wada saaray ciise xaaji cabdullaahi axmed iyo samiir cabdullaahi jaamac. aniguna waxaan ahay cabdirasaaq xaaji catoosh. balse marka hore ku soo dhowaada cabdinaasir axmed sheekh bashiir saxan saxo iyo warkii caalamka. mahadsanid catoosh. kalfadhiga sanadlaha ah ee baarlamaanka shiinaha ayaa maanta ka furmay magaalada Beijing iyadoo hadal jeedin uu sameeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu ku sheegay in sanadkani uusan jiri doonin kobac dhaqaale markii ugu horeysay muddo 30 sano ah. Li Keqiang ay atibaaxay in dalweynaha shiinaha uu adimada kula jiro dhibaato dhaqaale oo aan iyada oo kale horey loo arag. I would like to point out that we have not set a specific target for economic growth this year. waxaan doonayay inaan carab ku dhufta ayaa ah in sanadkan uusan jirin bartilmaameed gaar ah oo lagu xoojinayo kobaca dhaqaalaha sababtoo ah dalkeennu wuxuu wajahayaa dhibaato ay adag tahay in la saadaaliyo maadaama ay jirto jahawareer weyn oo horseeday safarka covid-19 iyo dhibaatada uu ku reebay dhaqaalaha iyo ganacsiga dunida. hogaamiyaha Hong Kong gabadha lagu magacaabo Carrie Lam ayaa sheegtay in ay u guuxday soona dhaweynayso qorshaha dalweynaha shiinaha uu shaaciyay in sharci abni uu ku soo rogayo jasiiradani kadib banaanbaxyo dimuqraadiyad doon ah oo ruuxay sanadkii hore. waxa ay sheegtay in xeerka cusub uusan saameyn doonin xorriyadaha dadka balse waxa ay qaratay in sharcigani lagu bartilmaamaysan doono waxyaabo ka mid ah banaanbaxyada. shirkadda duulimaadyada caalamiga ee dalka Pakistan ayaa lagu soo waramayaa inay ku burburtay magaalada Karachi wax yar kadib intii aysan soo caga dhigan. muuqaal la baahiyay ayaa muujinaya xaafad aad loogu badan yahay oo ay guryo gubanayaan qaac iyo uuro cirka isku shareertay. diyaaradda oo ay saarnaayeen 90 qof oo rakaab ah ayaa u kala gooshaysay magaalooyinka Lahore iyo Karachi. dacwad oogaha dambiyada dagaalada ee jamciyadda qurumaha loo dhan yahay ayaa xaqiijiyay inuu dhintay nin ka mid ah dadka lagu tuhunsan yahay inay xasuuq ka geysteen dalka Rwanda. dheecaanada hidasidayaasha oo laga qaaday ayaa cadeeyay in qof qalfoofkiisa laga soo faagay xabaal ku taala dalka Koongada Dimuqraadiga ah in uu yahay kan Augustina Bisimana. waxa uu ninkani ahaa wasiirkii gaashaandhigga dalka Rwanda sanadii 1994 xilligaasi oo ahayd markii uu dhacay gumaadka. ra'iisul wasaaraha dalka Hindiyana Narendra Modi ayaa booqanaya gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee West Bengal si uu u qiimeeyo khasaaraha ka dhashay duufaanta Amphan taasi oo ahayd mid ka mid ah kuwii ugu xoog badnaa ee ku dhuftay gobolkaasi sanado badan kadib. inta la og yahay 80 qof ayaa ku dhimatay duufaanta. isla Hindiya ayaa laga soo sheegayaa in laga diiwaan geliyay 6,000 oo xaalado cusub oo cudurka coronavirus 24 saac ee ugu dambeeyay taas oo ah tiradii ugu badneyd ee muddadaasi gaaban laga helo tan iyo intii markii uu dalkaasi soo gaaray cudurkani. arrintani ayaa soo korodhay xilli dowladda ay qafifinayso bandowgii muddada saarnaa.
ugu dambeyntiina nin horey u ahaan jiray madaxa adeegayaasha aqalka cad ee maraykanka kaas oo la soo shaqeeyey 11 ka mid ah madaxweynayaasha maraykanka soo maray ayaa geeriyooday isaga oo 91 jir ah sababo la xiriira cudurka corona. Wilson Roosevelt German ayaa aqalka cad ka shaqo bilaabay isagoo nadiifiye ah sanadii 1957 xilligaasi oo xukunka hayay madaxweyne Dwight Eisenhower. waxa uu howlgab noqday horaantii 90-meeyadii balse wuxuu dib shaqada ugu soo laabtay markii Barack Obama loo doortay aqalka cad. warkiina waa naga intaas. aad baad u mahadsantahay Cabdi Naasir. dalka Brazil ayaa laga soo warinayaa in hal maalin fayraska corona uu ku dilay dad gaaraya 188 qof. waa tiro aad u badan marka loo eego dhimashada Maraykanka iyo UK ee hal maalin dhacda. dalka UK-na waxa uu soo rogay ganaax la saarayo ciddii dalka soo gasha oo ka baxsata muddada karantiilka 14 maalmood ah. wararkii ugu dambeeyay fayraska corona waxa soo ururiyay Faarax Lamaane. inkastoo Brazil ay noqotay iminka meesha labaad ee cudurka uu faraha ba'an ku hayo dunida marka laga yimaado Maraykanka, misna tiradu waxa ay dhaaftay 20,000 marka laga hadlayo dadka u dhintay cudurka ilaa iyo Khamiistii, waxaana uu hal maalin gudaheed ku dhacay 18,500 qof. madaxweynaha dalka Jair Bolsonaro ayaa wajahaya cadaadis isa sii taraya oo la xiriira qaabka uu wajahay la tacaalidda cudurka, kaasoo la degay dhaqaalihii dalka mugdina geliyay rajadiisa la xiriirta in dib loo soo doorto bacdamaa uu aad uga soo horjeedo in dadku ay kala fogaadaan uuna gadaal ka riixayo in la isticmaalo dawada chloroquine-ka. suudaanta koonfureedna waxaa la xaqiijiyey in fayraska corona uu ku dhacay 10 wasiir sida uu BBC-da u sheegay wasiirka warfaafinta Michael McWay. waxa uu kaloo intaa ku daray in cudurku uu ku dhacay dhammaanba xubnaha guddiga la dagaalanka cudurka marka laga reebo wasiirka caafimaadka. arrintan ayaa waxa ay timid markii madaxweyne ku-xigeenka dalka uu sheegay in isaga qudhiisa iyo xaaskiisa oo ah wasiirka difaaca uu labadaba cudurku ku dhacay. South Africa ayaa waxa ay tahay dalka uu ku dhacay tirada dadka ugu badan Afrika, taasoo hadda maraysa 19,000 qof. saraakiisha caafimaadkuna waxa ay sheegayaan in tiradaas 60% laga diiwaangeliyey gobolka la yiraahdo Western Cape. Tanzania maanta waxa uu bilaabanaysa 3 maalmood oo lagu sheegay inay yihiin maalmo eebe loogu xamdinaqayo kadib markii madaxweynaha dalka John Magufuli uu ku dhawaaqay in cudurka uu ka yaraanayo dalkiisa, waxaana wixii hadda ka dambeeyay la joojiyay in la shaaciyo tirada dadka uu ku dhacayo cudurku. UK-na dawladda ayaa waxa ay doonaysaa inay ku dhawaaqdo qorshe dhigaya in dadka safarka ku imaanaya ay halis u geli doonaan in ilaa iyo 1,000 geni la ganaaxayo haddii aysan iskarantiilin muddo 14 maalmood ah marka ay dalka soo galaan. qorshaha waxaa ku jira in dhammaanba dadka dalka soo galaya laga buuxiyo foom ay ku qorayaan halka lagala soo xiriirayo. Faarax Lamaane aad baad u mahadsan tahay. haddaba koronaas caalamka inta badan uu ka qaylinayo Soomaaliya laguma baraarugsano. caasimadda Muqdisho oo maalmahan u diyaar garoobaysa munaasabadda ciidda, boqolaal qof ayaa suuqyada camiray. way isdhex socdaan, intooda badanna afka iyo sankaba uma xirno oo kuma baraarugsanoba taxadarka inta badan laga muujinayo coronavirus-ka. Beela Sheegow ayaa amuraasi iga warantay. catoosho magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqyada maanta waxaa ka jira mashquul aad u xoogan. dadkii dabcan waxay ku jira u diyaar garowga ciida. haddii aan fiirino labada suuq oo magaalada Muqdisho ugu waaweyn Bakaare iyo suuqa Xamarweyne, dad badan ayaa soo buux dhaafiyay iyo guud ahaanba suuqyada ku yaala magaalada. waxaa muuqata in bulshada gebi ahaanba aanay sameynaynin wax kala fogaanshiyo ah. taasna waxay keeni kartaa in xanuunka coronavirus uu dadka si fudud ugu dhex faafo. sidoo kale goobaha lagu qurxiyo dumarka iyo sidoo kale meelaha ay ragga ku jirtaan timaha gebi ahaanba iyaguna way buuxaan. ganacsiyada mashquulka noqda xilliyada ciida iyaga sidooda ay u shaqeynayaan. marka iyadoo aan ognahay in xanuunkan corona uu hadda adduunka faraba'an ku hayo oo wadamo badan ay ka bedeleen qaabka ay u ciidi jireen ama ciida laiskugu diyaarin jiray wax, maadaama ay dowladahooda soo saareen amaro ama xayiraado lagu yareynayo inay bulshada iskugu timaada. haddana waxaa muuqata in shacabka ku nool magaalada Muqdisho ay digniinaha caafimaadka ay dhagaha faraha ka gashteen aanay maqlinba. markaad eegto ciidihii hore Muqdishona waa joogtay oo dhowr sanadood bad ku ciiday,
iyo diyaargarowga ciidan waxaad leedahay wax isbedelo oo malahan gebi ahaan noloshii dadka reer muqdisho dabcan haa marka la fiiriyo goobaha ciida mashquulka noqdo siiba goobaha ganacsiga suuqyada meelaha dadka isku qurxiyaan goobaha laga adeegto sidoodii ayay mashquul u yihiin welibana waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah iyada oo welibana ay socoto wacyigelin xoogan oo ku aadan xanuunka coronavirus dadka haddana uma hoggaansamayaan talooyinka dadka xirfadlayaasha caafimaadka ay u soo jeedinayaan iyadoo welibana bishii lasoo dhaafay ee afraad ay wasaaradda caafimaadka ka digtay in xanuunka coronavirus uu bulshada si hoose ugu faafayo oo laga cabsi qabo wax loo yaqaano community transmission inuu dhaco inay bulshada xanuunka isku gudbiso ayay haddana shacabka muqdisho wax walba sidooda usii wataan sida inaanu jirin isbeddel oo kale ma isticmaalayaan haba isdhex socdaane gacmaha gloves ma ugu jiraan afka ma u xiran yahay ma kala fog yihiin mise waa un hayacdo iyo sidii awalba loo dhaqmayey catoosho horta wax kala fogaanshiye ah ha sheeginba horta asaga dadka ma kala fogaanayaan siiba suuqyada aad ayaa laiskugu dhow yahay oo dadka xataa laba qof meele isku dhaafta ma banaana dadka way si xoogan ayay u yihiin zaxmad xoogan baa jirta laakiin dad yar oo fara ku tiris ah oo waxaad arkaysaa afkana daboolanaya dad intaa ka sii yarna gacmaha ayay gloves raacsadeen marka ma laisla barbar dhigi karo bulshada waxaan dhihi karnaa 90% waxay aan u hoggaansami waayeen talooyinka caafimaad been la sheego wariyahayaga muqdisho ayay taasi ahayd hargeysa ayaa sidoo kale muqdisho aan waxba ka duwanayn oo boqolaal dad ah ay suuqyada isdhaxyaacayaan iyagoon wax taxadar ama feejignaan aan ka muujinaynin xanuunkan korona ee caalamka oo dhan ka qaylisiiyey sadiiq burmad ayaa warkaasina inoo haya goobaha laga tukaansado aad ayay u camiran yihiin waxaana buux dhaafiyey waalid dumar u badan oo ubadkoodii wata si ay ugu soo iibiyaan dharka iyo qalabka carruurtu ay ku ciyaarto iidda awgeed timajarayaasha ayaa iyaguna sidoo kale maalmahanba aad u shaqaynaya waxaana suuqyada laga adeegto ku sugan ciidan labisan oo budharsita kuwaasi oo la ii sheegay inay sugayaan amniga dadka shacabka ah ee adeeganaya maadaama maalmahan oo kale tuugtuna ay shaqadooda ay libinlaabaan maalmahanba wacyigelin la xidhiidha inay isilaaliyaan oo ay kala durkaan dadka adeeganaya ayaa socotay fariimo ka baxaya sameecado baabuur lagu rakibay ayaa magaalada dhex wareegaya siiba goobaha dadku ay ku badan yihiin sida bacadlayaasha waxaana la farayaa inay kala durkaan afka ay xidhaan isna ilaaliyaan markaase suuqa eegto taasi ma muuqato oo weli waa la isdhex qaadayaa si kasta oo dukaamaysiga bulshadu uu u badan yahay haddana la mid maaha iidihii hore oo sidan dukaamaysigu uu ka badnaa arrintan ayaa ganacsatadu ay ugu macneeyeen inay sababtay dhaqaale yaraan jirta oo qoysas badan soo wajahday sadiiq burmad oo hargeysa jooga aad buu u mahadsan yahay aan facebookga u galo axmed cabdulaahi maxamed wuxuu yidhi waa nasiib darro iyadoo korona dadku ay u dhammaanayaan in shacabkii aqoon-yahankii iyo culimmadii iyo ardadii iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ay si caadi ah suuqyada meelaha la isugu yimaado isu dhex fadhiyaan iyadoo mararka qaar laga yaabo inay jaam uu ka jiro suuqyadaasi waa nasiib darro aad u weyn ayuu yidhi waa hagaag war hadda soo dhacana wuxuu sheegayaa in diyaarad rakaab oo dalka bakistaan laga leeyahay ay dalkaasi meel ka mid a ku dhacday ciise xaaji cabdullaahi la socday oo hadda istuudiyaha ii soo galay ciise maxaa u dambeeyey cabdirasqaaq shirkadda duulimaadyada caalamiga ee bakistan ayaa lagu waramayaa inay ku burburtay magaalada karaaji wax yar un kadib intii aysan cagadhiganin garoonka magaalada lahoor muuqaal la baahiyey ayaa muujinaya xaafad aad loogu badanaya oo guryo badan gubanayaan qaaci iyo oo cirka isku shareeray diyaaraddana waxaa saarnaa cabdirasaaq 99 dad oo ay ka mid yihiin 8 ka mid ah shaqaalaha diyaaraddaasi diyaaraddana waxay ka soo kicitantay garoonka caalamiga ah ee jina ah mid ka mid ah garoomada ugu mashquulka badan dalka bakistan cabdirasaaq howlaha gargaarka degdeg ah ayaa haatan goobta ku sugan welina khasaaraha lama sheegin hase aatee waxaa la aaminsan yahay in dhaawaca iyo dadka diyaaradda saarnaaba ay xaaladoodu halis ay tahay aad baad u mahadsantahay ciise xaaji cabdulla warkaasi oo hadda soo dhacay nala socodsiinayo kaasi ahaa ka qaybgal barnaamijyada laanta af soomaaliga ee b b c oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message taleefonka nambarkiisu yahay 44 ka dhiibo waxa ay kula tahay b b c Soomaali
hagaag golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir qaab maqal iyo muuqaal ah ka yeeshay xaaladihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya waxaana wadamada xubnaha ka xafiiska UNSOM ay isla qireen dhibaatada uu fayraska corona ku hayo dalka iyo muhiimadda ay leedahay in doorasho la isla ogol yahay ay ka dhacdo dalka sidoo kale waxaa golaha uu ka hadlay dadaalada nabadeynta iyo dawlad dhiska ee Soomaaliya ee dhanka kale dagaalka ka dhanka al-shabaab haddaba si aan u falanqeyno waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaan qadka telefoonka ee gobolka Ohio ku wareysanay Professor Jibriil Cali Aw Jaamac oo baraka jaamacadda Ohio warbixinta golaha ammaanka ee arrimaha Soomaaliya warbixin si joogto ah loo sameeyo sanadka waxay ku saabsanayd waxyaabaha socda oo haatan ka taagan dalka gaar ahaan cudurkan faafay ee COVID-19 iyo dhibaatada uu dhaqaalaha iyo bulshada iyo caafimaadka u geystay waxay ku saabsanayd doorashooyinka dhici doona sanadka soo socda waxaa aad looga hadlay arrimaha amniga waxaa laga hadlay arrimaha dowlad goboleedyada iyo horumarka ay sameynayeen dalalka intooda badan waxay xoogga saareen arrinta doorashada iyo sida looga baahan yahay in hanaan ay Soomaalidu isla ogoshahay lagu galo marka maxay tahay sababta ay ugu hadli waayeen suurtagalnimada ah inay dib u dhici karto fayraska corona awgi runtii doorashada waxay bogaadiyeen sharcigii ay gudbiyeen baarlamaanka oo meel mariyeen madaxweynuhuna saxiix bishii labaad waxay ka hadleen in uu socdo dadaal haatan ay wado guddiga doorashooyinka iyo weliba guddi isku dhaf ah oo labada aqal ee baarlamaanka ah oo eegaya waxyaabaha ka dhiman ama qabiyada ka ah sharcigaas la meel mariyey kamaanay hadlin dibdhig iyo horumarin iyo xilliga la qabanayo sababtoo ah tusaale ahaan ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan oo arrintaas ka hadlaya wuxuu sheegay howlaha ay wadaan guddiyada baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinku inay yihiin kuwa lagu go'aamin doono oo hay'adaha Soomaalidu leedahay oo hay'adaha dawliga ah oo dastuuriga ah ay go'aanka doorashada ayagu leeyihiin ayagana ay ka warsugayeen beesha caalamka kaalintan oo tahay inay ku taageeraan go'aanka ay la yimaadaan oo haddii doorasho qabsoomayso dhaqaale iyo taageero farsamo iyo amni in la siin doono guddigaas haddii ay wax kala yimaadaan iyaga in laga warsugayo oo Xaliime Yarey ama guddoomiyaha guddiga doorashooyinka warbixinta ay labada aqal ee baarlamaanka siin doonto iyo go'aanka ay baarlamaanku ka qaadan doonaan ayay wax walba ku xiran yihiin ayuu sheegay Mareykanka markaynu eegno waxa uu ka hadlay xiriirka federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo kulamadii caadiga ahaa ee ay yeelan jireen oo muddo hadda hakad ku jira marka maxaa kaaga baxay hadalkiisa dowladda Mareykanka ergeyga qaramada midoobay dhammaan way ka hadleen arrinta ku saabsan dawlad goboleedyada waxay ku baaqeen in la soo celiyo wada tashiyadii ku saabsanaa amniga dalka oo guddiga amniga qaranka oo shiri jiray inay shiraan waxay sheegeen muddo sanad ka badan haatan inaanay shirin waxaa in la xuso mudan arrinta ay bogaadiyeen oo ah isbedelada ka dhacay koonfur galbeed oo gole baarlamaan loo soo xulay galmudug oo gole wasiiro oo sal ballaaran loo sameeyey marka runtii waxaad moodaa in ay ku dhiiriyeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka intuba inay wada hadalkoodii wada xaajoodkoodiina wadaan arrinta AMISOM waxaa soo qaaday dalal dhowr ah marka hadaladooda ka muuqatay in muddo kordhin loo sameyn doono howlgalkaasi AMISOM lama soo qaadin muddo kordhin AMISOM waxaa la sheegay inay baxayso 2020 awal waxay ahaan jireen dad ka badan 20 haatan waa 19 askari oo dhimaalkoodii waa la bilaabay waxa ay ka hadleen in ciidamada Soomaaliya ay horumar ka sameeyeen inay la wareegaan goobo ay al-shabaab haysan jireen sida shabeellaha hoose deegaano kamid ah sida Jannaale shabeellaha dhexe taasoo suuragelisay amniga Muqdisho inuu soo hagaago suuragelisay ciidamadii inay runtii awoodooda muujiyaan oo ay haystaan dhulka ay qabteen marka waxaa la rajaynayaa bay leeyihiin oo ay ku hadleen maanta sida ay soo bandhigeen dadkii madaxda ah meesha ka hadlay in la sii xoojiyo ciidamadaas la sii dardargeliyo howlahooda ciidamada ilaa 10,000 ee gaaraya ee qaramada midoobay ay taageertay Soomaaliyeedna la sii kordhiyo Professor Jibriil Cali Aw Jaamac Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayuu u waramayay hagaag website-keena intiina awoodda u leh booqan karto bbcsomali.com qodobada aan soo dhignay waxaa ka mid ah sheeko aad u xiiso badan oo cinwaan u ah gabar ku xirneed xabsi ku yaala Kuuriyada Waqooyi oo la baxsatay askarigii ilaalinayay sheekadaasi oo qoraal dheer ah oo sawirana leh boggeena bbcsomali.com ayaad ka daalacan kartaan waa hagaag halkaad weli nagala socotaan waa BBC barnaamijkeennii duhurnimo bartanka kaga jirna haatanna ku soo dhawaada barnaamij qaas ah oo ku saabsan saamaynta cudurka fayraska corona uu ku keenay arrimaha waxbarashada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mid ka mida barnaamijyada gaarka ah ee maalmahan baan uga hadlaynay saamaynta uu keenay cudurka coronavirus ee dunida oo dhan aafeeyey barnaamijyadaasi waxaan ku eegaynay raadka uu reebay xanuunkan dhaqaale ahaan bulsho ahaan waxbarasho ahaan iyo meelo kaleba waan uga hadlaynay iyadoo la og yahay in dalalku isku si uusan u saamaynin marka laga hadlo arrimahaas aan kor ku soo xusay balse waxaa laga siman yahay saamaynta dhaqaale tan waxbarasho tan isu socodka bulshada in dalal badan uu isku si cudurkan u taabtay xubinteenna maanta waxaan ku eegaynaa waxbarashada oo aan ku soo qaadan doonno waa sidee xaalka waxbarashada soomaalida gaar ahaan soomaalida maraykanka ku dhaqan nairobi iyo iskuulaadka ku yaalla ee ay soomaalidu leeyihiin sidee buu raad ugu reebay xanuunkan isaga ah sidoo kale waxaad maqli doontaan warkeennii halka daqiiqo ee maalinlaha ahaa ee cudurka korona ku saabsanaa iyo weliba ra'yiga dadweynaha ee qodobkan isaga ah balse marka hore aan ku hormarno dalka maraykanka oo iskuulaadkii la xidhay taasoo keentay in carruurtu ay guryahooda iyagoo jooga uu macallinku qaab online ahaan ah uu wax u barayo siyaad saalax ayaa arrimahaasi wuxuu weydiiyey cabdiqani cilmi oo ka tirsan twin city international schools iyo weliba xamdi axmed oo ah hooyo ilmaheeda iyagoo guriga jooga ay wax bartaan hadalka waxaa ku hormaraya cabdiqani cilmi sida aan la wada soconno covid-19 wuxuu sameeyey habsocodkii waxbarashada guud ahaan adduunka gaar ahaan annaga minnesota waxaa loo bedelay march 30keeda waxbarashadii live-ka ahayd waxaa loo bedelay distance learning oo ah online taasoo ahayd arrin ka cusub ama arrin nagu cusub macallimiin ahaan iyo waalid ahaan iyo arday ahaan taas waxaa la isticmaalayay qaybo kala duwan technology-ga oo fududeynaysa inuu ardayga sida ugu dhaqsiyaha badan ama sida ugu wanaagsan wax lagu gaarsiin karo sida aan sheegay qayb waxaa la isticmaalayay zoom qayb waxaa la isticmaalayay pearson realize qaybna waxaa la isticmaalayay google hangout gaar ahaan annaga waxaan isticmaalaynay google hangout oo ah ardayga inaad live u aragtid qaybta kale zoom sidoo kale waa isku mid tan faa'iido badan ayaan ay lahayd in ardayga online uu ku qaato faa'iidada haddaan ka hadlo kow waalidkii oo ag fadhiyo ardaygii markaad cashirka u sharxaysid waalidkii la ogaanayo wuxuu cunugii baranayo waalidkii oo ogaanayo ama training ahaan aad ku siinaysa markuu la fadhiyo ardaygiisa inuu wax baranayo taasi waxay ahayd faa'iido weyn oo ah waalidka wuxuu si gooni ahaan ama si gaar ahaan uu ogaanayaa ardaygiisa heerka uu maraayo inuu kor u socdo iyo inuu hoos u socdo waxaa lagu qiimeynayaa assignmentyadii aan sadgaraynay hadday tahay 2 maalin hadday tahay 3 maalin taasi waxay awood weyn u yeelaysay waalidka oo ogaanayo cunugaas horumarkiisa tan kale waxaan si wanaagsan u dhismay xiriirka waalidka iyo macalinka taasoo waalidka every morning aad is arkaysaan markuu soo fadhiisto computerka iyo adiga oo markaa soo fadhiista galaas ahaan uu la soconayo dhaqdhaqaaqa horumarka qabadka ardayga taasina waxay ahayd faa'iido weyn ee saameysay uu keenay covid-19 xagga waxbarashada ciyaalka markii ay la socoshada waalidka tan kale waxay lahayd oo kale negative ama nusqaanta waxaa ka mid ahayd kow waxaan misgaraynay ardaydii aan la fadhiisan jirnay markay subaxdii iskuulka imaanayaan quraacda ay cunayaan qadada oo physical contactiga ama assalaamu calaykum aad gacan qaadaysay say tahay aad dhehaysay aad is wareysanaysaan taasi waa nusqaan dhacday oo yacni ay koosgaraysay covid-19 taasi waa gooni faa'iidada laga helay iyo nusqaanta haddii la isbarbardhigo waa wax yacni laga hadli karo oo waqti qaadanayso bal waxbarashadii si ahaan si fiican ayay u socotaa waxaa meesha ka dhismay kalsoonidii macallimiinta waalidka iyo ardayda taasoo yacni ardayga waxbarashadiisa si aad u wanaagsan ay u socoto waxaa laga faa'iiday waxbarashada guri jooga waxyaabo badan sababtay tahay waxyaabaha laga faa'iidayo waa wax dhib iyo dheefba isugu jiro ilmihii inaa guriga ay wax ku bartaan way adag tahay sababtay tahay waalidku macallin ma noqon karo macallimiinta siday wax u baraan waalidiinta ilmaha wax uma bari karaan
macallimiinta waa shaqadooda, waa waxay soo barteen, way yaqaanaan sida ay ilmaha ay wax ula samayn karaan. gurigase markuu ilmihii wax ku baranayo waxa waaye maanta dhan wuxuu arkaa inuu cabiid ku jiro oo kombiyuutarkaas uu kor fadhiyo. waalidiinta dhib bay ku qabaan, waa inaa maanta dhan kor taagnaataa. waxaa lagu leeyahay waan sameeyey, waan diray. macallimiinta waa kuu soo tagsgaraynayaan, tagsmasjaa lagu soo diraya. waxaa lagu leeyahay ma la samayn cashirkii hebel ahaa. waa aad iyo aad bay rafaadsannahay. ma u malaynayo inaan wax ka faa'iidnay waxaan rafaad ahayn. midda labaad oo ah dhib miyay leedahay inay ilmuhu guriga joogaan? haa, dhib ayay leedahay. sababtay tahay ayagina dhib bay qabaan, waalidiintiina dhib bay qabaan. markay iskuulkooda aadayeen ilmaha haway qaadanayeen, bannaanka ku ciyaarayeen, arday kalay soo arkayeen, macallimiintoodii dhifanayso kala noocay soo arkayeen. laakiin gurigii waa adigii ayaga iska hor imaada, maanta dhan ishor fadhiya. xabsi iyo cabiid bay u arkaan inay ku jiraan. marka dhib badan ayaa lagala kulmay. waxaa laga yaabaa carruurta inay badan yihiin qaarkood. reer baa laga yaabaa inay 6 carruur haystaan, maasha allah. reer baa laga yaabaa 4 5. marka way adag tahay saad u kala wadwadaysid, u kala midba qof ugu tagaysid. kuwaasi waxay ahaayeen xamdi cabdi oo ah hooyo ilmo ay dhashay iyagoo guriga jooga ay online-ka wax ku bartaan, iyo diqani cilmi oo ka mid ah maamulayaasha iskuulla ku yaalla Minnesota. haatanna ku soo dhowaada wararkii BBC-da ee fayraska corona ee caalamka ee halka daqiiqa ahaa. waa hagaag. haatanna Nairobi. waalidiinta Nairobi ee ilmahooda iskuulaadka ay awal toos ku aadi jireen ayaa hadda lagu qasbay in cunuga isagoo guriga jooga uu wax barto. arrimahaasi waxaan ka waraystay maamulaha iskuulka Novel Academy Maxamuud Canshur. saameyn adag ay yeelatay oo inagu yeelatay maxaa yeelay ardaydii kolkama imaan karaan waa in online wax lagu bara. online-kana wuxuu leeyahay cillado badan in waxbarashada maaragtay si kaamil ay u baxdo sidii laga doonayo oo markii ardayga iyo macallinka ay soo taagihiin ay u bixayso ma bixi karta. waayo carruurtu waxay ku mashquuleen in badan maaragtay liidooda taam ma aha markay guryaha joogaan. waxay ku mashquulayaan sawirada iyo videoga ay arkayaan oo carruurta saaxiibadooda meel fog ka jooga oo ay maaragtay la khitaabayaan oo la hadlayaan. macallinkii oo si buuxda u xakameyn karin ardaygii, waayo maaragtay lama joogo. cunug walba waxaa inaad dhahda war joog, war waxaan daa, war fadhiiso. macallinka wuu ku rafaadi. waalidiintii oo maaragtay iyaga laftooda inay arday noqdeen oo maaragtay mar walba la joogaan carruurtii, oo inay la fadhiistaan oo ay maaragtay carruurtii la hadlaan oo ay la joogaan goobjoog u noqdaan, ama waqtiga xilligii ay u sheegaan ardayga uu kalaas soo gelaya oo mar walba inay la hadlaan oo ay dhahaan war waqtigaaga weeyaane maaragtay aaladda waxbarashada qaada oo gal qolkii waxbarashada. maxamuud, internetka hadda waxbarashadan qofka asagoo guriga jooga uu wax baranayo lagu isticmaalaa. ka warran adeegga internetka isna saameyn midinku yeeshay? waxaa dhexaysa waalidiinta qaar inay bahaysaninba internetkii. midda kale internetka Afrika ma xoogana oo si kaamil uma xoogana. marka in badan waxaa arkaysaa ardaygii inuu ka go'o cashirkii socdo ama uu ka baxa internet maadaama internetkiisu xooganeen. waalidiintana haddee maaragtay qaar markii loo sheegay in maaragtay wixii ka dambeeya internet wax lagu baranayo inay internet soo gashadaan ay ku qasbanaadeen dhammaantood. cilladaha kaloo jira oo guuda waxaa ka mid ah maaragtay waalidiintii oon ka koobi karin dee carruurta aaladaha waxbarashada aan ku koobi karin dhammaan, oo maaragtay waalidka hadduu leeyahay 7 cunug ay noqotay inuu u gado 7 computer ama 7 way adkaatay. marka iskoolada waa inay la imaadaan farsamo ay wax ugu bari karaan. hadduu waalidka maaragtay inay waqtigii la kala bedelo carruurta ay wax baranayeen markay waalidiintan ugu soo caawdeen oo inooga sheegteen arrintiide inaan waqtigii aan yarayno waxbarashada ay nagu qasabtiidana. kaasi waxa uu ahaa maamulaha iskuulka Novel Academy ee magaalada Nairobi Maxamuud Canshur.